بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبي صلوات ربي والسلام عليه وحق السجن حديث صحيح مسلم كالسجن وورنا يا عياض المشاجعي نبي وحق السجن إنه يري أهل الجنة ثلاثة أهل الجنة والصدح معناها اللي موضه إن صدح لان كليه كوبيهين أهل الجنة وصدح أي قيبتان با كمid si lagu ogeysiiyo hadii astaamahan aad leedahay ma aad samayso waxyaabahan oo kale ahlu jannah ذو سلطان مقسط موفق ninka ugu horeeya ma qofka ugu horeeya waa qof suldaan leh macnuhu waxa weeye madaxweyne boqor mas'uuliyad qof leh qofkaas oo muqsit cadaalad u saaxiiba qof cadaalad fala oo muwaffaq ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay cadaaladu samaawaadka iyo dhulka waxay ku tagan yihiin waa cadaalad inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a ilaahay subhanahu wa ta'ala cidna dhulmiyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadis qudsi wuxuu leeyahay inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu baynakum muharrama dhulmiga ana iska xarantimay buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala dhaxdiinana waxaan ka dhigay xaraan إلهي وحوليه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وحانقطان كو أتاغن عدالة إلهي سبحانه وتعالى نمرقاته ونقضر إن عدالة أتاغنتين ولو على أنفسكم له فيالكين كركين هذاني أو الوالدين أو والدين أما أقربا كل وحلو بها إن أذقوا عدالة كسوغنته مركا ذو سلطان قفك سلطانك وصاحبك oo muqsitun oo waxa way cadaalad ku sugan muwaffaq Allah subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay ka ayaa waxa weeyay ahlu jannaha kamid nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sheegay xadiis kale todobada harka Allah subhanahu wa ta'ala haraysanaa yawm al-qiyamah waxa kamid imaamun aadil qof madax oo cadaalad ku sugan cadaaladu dhamaanteen waa looga baahan yahay waana asbaabaha jannada lagu galo koow mid labaad waa rajulun qof رحيم النحريس بدن رقيق القلب قلبي سنة أوجر عسيه لكل ذي قربة ومسلم قف كستو قرابة إيا مسلم جود أي أوجر عسيه أنا نحريس بدنيا نحريستو ولا ليال وحا كل سن دين إسلامك بينما civilization هذا كله أما تتك كله أو صومري أدون كان ayagu ay ku dhisan tahay aniga iyo xoogayga iyo aniga maxaan helaa iyo maxaa igu jiro islaamku wuxuu ku dhisan yahay naxariis alle wuxuu leeyahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nabi maxamed sallallahu rabbi wa sallam alayhi maanan kudirin illa naxariis inaad tahay lil alamin unka inaad u tahay naxariis إلهي وحوليه سيدو كلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نحريس ألا حق سكاهاتي دراد أيا أدق وجرع سنة ذاتك أو نقطة مد جرع سن هدي أد أهل مد أدق قلبي سنة أدقها تدكوي كعر الله ما كان نحريس تجنب على وجرع قفك إنه يهي رقيق القلب قف قلبي جرع سن ذاتك أنحريسنا يو حاسك سجور أنحريسنا يو ذاتك أولا شقينا يشقدا أنحريس ardayda isku galaaska ay fadhiyaan una xariisanayo dadka ay wax ay ka wada dhaxayaan una xariisanayo qalbigiisu jecel yahay qofka soo qaraabo iyo muslim u jilicsan qofkaasi waa ahlu janna qayb saddexaad nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu yiri wa rajulun afifun mutaaffifun qof afifun mutaaffif dhu iyal doorsoon haddana doorsanaanta ku dadaalaya ذو عيال عرونا أصحب معناه وحويه قفكاسي عرو بدن بوليه بيلنا وماهيا لكن دتك وحوي دي سماه هو صبر يا وعفيف متعفف لقيا بقى عروته هرتسا كو اوينيان waxbarasho u baahan yihiin xogaa risqiga ku adkaaday laakiin qofna weydiin ma لا يسألون الناس إلحافا كواسي ددك ويدين مايان waxaa loo haystaa inay yihiin dad xoolo leh oo dadku waxay u heestaa qofka inuu fiican yahay laakiin weydiisan maayo tawakkulkiisa ayaa xoog leh qofka doorsoon ilaahay subhanahu wa ta'ala waa jecel yahay yawm al-qiyaamah qofka jannada ayuu galaya marka saddexda waa saddex ilaahay subhanahu wa ta'ala
ahluljanna uu ku tilmaamay. ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo qofka dhoorsoonna diintiisa waa u badbaadaa, asagana waa badbaadaa, sharaftiisana u badbaadaa. laakiin baryo badan soomaalidu waxay tidhahdaa baryo badan iyo bugto badan waa isku nacaa. qofka haddaa maanta dhan leedahay biilka ii soo dir oo waxaa isii, haddee adigu tawakulkaadoo dhan waxaa laga yaabaa inaad qofkaa saarto. haddii laakiin aad shaqaysato oo dukaan yar aad furato oo xoogaa aad orodo, laga yaabaa inaad waxaa weye ka faa'iido, ilaahayna subxaana wa tacaala risqi uu kuu furo. allah naga dhigo dadka wanaagsan oo ilaahay subxana wa tacaala arsaaqdiisana ha noo furo, ibaabadiisana alle subxaana wa tacaala ha noo furo. aad baad u mahadsantihin. allah jannaha naga dhigo. aad baad u mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.